halkani waa magaalada Buuhoodle waxa habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Buuhoodle dhexdeeda gaarigan oo laga shakiyay gaarigan ayaa mari kari waayay hatta magaalada dhexdeeda shaki iyo tuhun badan iyo telefoonno badan oo isa soo gaaray ayaa gaarigan lagu qabtay gaarigan ayaa wada waxyaalo badan ilaa saaka waa la rogayay wali kala badh baa harsan saad u jeedaan gaariga ammaankiisa waxa ilaalinaya ciidamada ammaanka ama difaaca Buuhoodle oo aad aragtaan in ay gaariga ilaalinayaan sidoo kalena ay hareeraha ka taagan yihiin shacabkiina waa kan oo waxa uu joogaa dhinacyada gaariga waxa gaariga ka soo baxa uun baa la sugayaa mas'uuliyadda iyo ammaankana waxa qaaday ciidanka difaaca Buuhoodle oo iyagu afarta koona hadda ka taagan gaariga kan waa mid kamida saraakiisha gaariga ilaalinaya Somali Police Force way wada jeedaan soo dhawow dad badan baa isweydiinaya sababta gaarigan loo qabtay maxaa markaa ku sifayn lahayd gaarigan iyo hawshiisa abisho la wadaagaysa bismillaahir rahmaanir rahiim ama maxaa cali faraha soo waxa la wadaagayaa habus ayuu waday wuxuu waxa washkinay waxa macaha cadawaygu ay leeyihiin oo hub iyo rasaas iyo macaha dawaa inaan ka barno waxa ku soo baartaankii wax wali saxan waan gaarina wali uu xiran yahay wixii ka soo baxa warbixinteeda waa heli doontaan baartaankina waa ku socdaa gaarigan xalay wax arqalada sida social media lagu arkay waxa jira dad warar been isla dhex maraya in magaalada Buuhoodle gaari lagu qabsaday oo huba lagu qabsaday waxa maxaa ka jira taa been waxa ka jiraan ka aan baarayna hadii wax laga helay laga hel hadii laga waayana laga waa waxaraya waa dib baan u horeeyay hadii waxba ka weydo mas'uuliyadda gaariga waxa qaaday ciidanka difaaca Buuhoodle oo hadda mas'uuliyadiisa ay miyay jiraan wax arqalada ama shiciba oo gaariga dhibaateeyay ma jiraan maxaa la wadaagaysaa gawaarida safarta ee ka timaada koonfurta ee u gudba waqooyiga Buuhoodle maadaama ay tahay bridge isku xidha gobolada Soomaaliya waxa halkan ka daawanaya dad badan oo safra oo mara wadooyinka iyaga maxaad u sheegaysaa wadadu way furan tahay gaariga aan ka shakino baan baalayna wax dhibaato kale inuu geysanmayno ammaanka in la ilaaliyo ammaanka la ilaalina dadka soo qaadaya waxyaalaha dhibaatada ku ah deegaanada SSC ee soo dhex maraya dhulkeena waa fiidana kuwa fiidana waxa ka qabanayna abni rahmaanaya waxa ka qabanayna waana baalayna gaari kasta saas loo baariyaa saad u jeedaan gaariga alaabtiisa hadhow siday tahay baa loogu celinayaa waa loo sharooteynaya shaki baa gaariga loo baaray iyo tuhno badan saad u jeedaan shaqaaliba hadda rogaya alaab kasta wata meesheeda la dhigayaa qof taabanayaan ma jiro mas'uuliyaddeeda saa loo qaadaya alaabta saad u jeedaan waxa ammaanka ilaalinaya ciidanka difaaca Buuhoodle ama gobolka Cayn oo shacabkii halkaas ayuu kala socdaa xaaladda waxa jira dad warar badan isla daba wareegaya oo been abuura oo la gaariba Buuhoodle lagu qabsaday oo lagu biliqaystay taana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inaysan waxba ka jirin waxa la yiraahdo gaariga in ammaankiisa ka yahay hal shalfadna aan laga qaadin darawalkii gaariguna waa halkaas sii jeeda gaariga ilaashanaya wax dhibaato oo la gaarsiiyay inaysan jirin baan bulshada u cadeynaynaa gaarigan hadii shakiga laga qabo wax ka soo baxaana waa la ogaanayaa hadii waxa la yiraahdo wax ka soo bixi waayaana mas'uuliyadii iyo raritaankiisii iyo waxa la yiraahdo wuxuu gaarigaas u ku sii socdayba siday tahay baa loo amba bixinayaa kaliya ammaanka magaalada in la sugo uunba ficladan loo samaynayaa maadaama dalku ku jiro dagaal waxaan u sheegaynaa bulshada halka nagala socota in ay
ilaaliyaan ama aysan soo dhex mari karin gaari wada wax dhibaato ku ah deegaanada SSC kuwaasoo gacan biro wax looga qaban doono saad u jeedaan ciidanka difaaca Buuhoodle ba gaariga afarta dhinac ka taagan oo ilaashanaya wax dhib oo gaariga loo geysanayaan ma jiro alaabtiisina wataa saan idin la wadaagnay shacabkii ayaa iyaguna halkan kala socda xaaladda oo afarta dhinac gaariga ka fadhiya adano shacabka waxaad ka mid tahay gaarigan u yimid inay xaaladdiisa la socdaan saad u jeedaan booliska waxa uu ilaalinayaa gaarigii idinkoo de shacabkii iyo xaaladii iyo baldareenkiina ka warramayo saad magaalada u ilaalinaysaan xaalkeeda baabuurka waanu ka shaqeynay waxaanu ka soo qabanay soo joogto waa baaraynaa waa fikishaynaa wax dhibi ma jirto haddii wax laga waayo waa la rarayaa dowlad dadweyne uu noqdo waan gartaa wax kaloo dhibina ma jiraan baaritaankuna meel kasta wuu ka socdaa waddan walba way xidhan tahay waa la tafniidayaa sidaa macnaha yaanu ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa baabuurka inaan la goobayn oo wax dhibaataa lagu samaynayn oo khiyaar haysato gobolka Buuhoodle waa gobol macnaha ammaankiisa sugan yahay sharaf badan yahay macnaha wax dhibi ma jiro anigoo ka hadlaya afka dadweynaha iyo xalayna maanu seexan wadooyin badan baanu maray waxbaana loo sheegay talaaqada ninkaas alqaacidadii sameeyey yaa la baarayaa wax kaloo la baarayaa ma jiro hadhow gaariga marka la baaro siduu u rarnaaba loo rarayaa sidii u rarnaaba loo rarayaa xamaalka waxaa rogaya 2 maalmoodna ha qaatee dadweynaha bixinaya waan gartaa xaaladdu saa weeye maxaad u sheegaysaa dadweynaha halkan kaala socda dadweynaha halkan igala socday maqal iyo muuqaal dhegaysanaya baabuurka macnaha shaki baarasho ah unbaa lagu baadhay wax la yeerayaa ma jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay kaasuna waxa uu ka mid ahaa odayaasha iyo waxgaradka gaarigan wax ka soo qabtay saa u jeedaan gaarigan waxaa laga soo qabtay deegaanka Sool joogto oo 30 kiiloomitir ka xiga dhanka waqooyi magaalada Buuhoodle gaarigan markii uu dhaafay magaalada ayaa laga daba tagay shaki badan iyo telefoonno badan dadweynuhu waxa uu ka warsugayaa hadda gaarigan iyo waxa ka soo baxa saad u jeedaan gaarigii waxa la rogay kala badh ilaa saakana rarka waa la rogayay rar aad u badan baa saaran marka waan sugaynaa wixii ka soo baxa halkan baad kala soconaysaan waana hubin hawshaasi gaarigiina weli rar badan baa ku hadhay ilaa hadda ma jiraan wax rasmi ah oo dhib ku ah amniga oo gaarigan laga helay rar badan buu wadaa noocyo kala duwan oo ganacsi ka mid ah marka waxaan sugi doonaa waxa gaarigan ka soo baxa u sheergareeya waxaa jira dad badan oo been abuur isla dhex maraya kuwaasi oo leh gaari baa la qafaashay iyo gaari baa wax la yeelay gaarigu inuu caadi yahay xaaladiisu degan tahay baan idin cadaynaynaa sheergareeya fadlan gaarsiiya in amni iyo in magaranaysa mas'uuliyadda deegaanka la ilaalinayo oo gaariga looga shakiyay haddii laga waayana asagoo nabada oo wixiisa wataan u dirayna haddii lahaydmo oo aan shay ka maqnayn ayaa dadka shacabka lahaa waxaan lahaa loo gudbinayaa haddii laga helo saanad militaryna de asagaa soo indhaa oo maxaad bulsho weynta gaadiidleyda ah halkan marta aad ugu baaqaysaa waxaa jira dad badan oo la cabsi geliyo lagu gaariba xalay magaalada Buuhoodle lagu qabsaday wax lagu yeeleeyay alaabtii saarnaydna lagu qaatay maxaad u sheegaysaa iyaga waxaan u sheegayaa koow fariin baan u dirayaa fariinta koowaad aan u dirayaa waxa weeye in ay ka taxadaraan waxa ay soo qaadayaan inay iska hubiyaan oo ilaaliyaan kana ilaaliyaan saanad military oo dadka wax yeeli kara inay soo qaadaan dadka ay dhex marinayaan dhibaato ku tahay dadka ay u wadaanna waxa weeyaan dad bay ku dhibaataynayaan sidaa darteed waa inay iska daayaan oo iska taxadaraan soo qaadista saanada military baaqa koowaad aan u diraya waa ka labaad aan siinaya waa nabadgelyo jidka
dadku waxa weeyaan waa siday ku mari jireen wax qaaqula ma laha wax cabsi ma laha wax cabsi gelina ma laha waa nabadgelyo shacabku sidii uu kala ganacsan karay uu kala ganacsanaya dariiqa gaadiidka sidii mari jireen bay u marayaan wax dhibaato ah kama jiraan soo dhawaadaan leena idinka oo mahadsan sidaad u mari jirteen oo mara laakiin waxaan ku tartaarnaa in la soo qaadin wax dadka iyo dalka iyo shacabka waxyeello ku ah aad baad u mahadsan tahay kaasuna waxa uu ahaa Axmed Cadaani oo ka mid ah ganacsatada magaalada Buuhoodle waxa socda rugitaanka gaariga wali waxa uu marayaa gabaabsi sidoo kale waxa la tolayaa oo sidoodii loo wada tolayaa alaabtii gaariga la furfuray ayaa sidoodii loo tolayaa oo aad marxaati ka tihiin daawadayaal waad aragtaan shay kasta sidiisii baa lagu celinayaa dhalinyaro badan oo qaybaha kala duwan ayaa hawsha ku heelan waad u jeedaan alaabta shay walba in sidiisii loo sharootaynayo ama loo xirayo saad ula socotaan dhinacyada kala duwan hadda waxa gabaabsi maraya rugida gaariga wixii ka soo baxaa mar dhow ayaynu ogaan doonaa halkan ila joog amnigana waxa sugaya saan hore idinku sheegay ciidanka difaaca gobolka Cayn magaalada Buuhoodle waa magaalo ku taala meel xuduuda oo u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna ka mid tahay magaalooyinka halbowlaha u ah labada dal waana magaalo ay isku xidhaa intaas oo gobol ilaa koonfur ilaa waqooyi ilaa bari ilaa galbeed waa magaalo ay maraan marka mas'uuliyadda rogitaanka gaariga iyo xaaladiisa sidaas loo baarayaa maadaama dalal kala duwan uu soo gooshayo annagana deegaan ahaan ama SSC ay ku jirto xaalad hadda dagaal cusub ay dhacayaan ka in aan gaariga wax carqaladaysan ama dhibaataysan la saarin baa mas'uuliyadda loo galay hadda waxa gabaabsi maraya rogitaanka gaariga daawadayaal saad u jeedaan halkan waxa ku sugan qaybaha kala duwan ee injineerada eega waxyaalaha qarxa ama hubka noocyadiisa kala duwan kuwani waa dhalinyaradii magaalada oo ku sugaya xaaladda soo dhawow waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Buuhoodle ugu caansan gaar ahaan social media qaybta TikTok-ga xalay waxaad ahayd shakhsigii duubay gaariga markii uu wadada taagnaa una gudbiyay bulshada maxaad leedahay horta hadda gaarigii waanu ka dul sugannahay waana baaraynaa ilaa xalina wuu isoo jeediyay waarto u hurto dhiigga shubto hantida bixiso wixii dalka khalkhal u keenaya ka jirto inay dhulka iyagu leeyihiin inay ogaadaan baan u sheegayaa bulshada oo qof kasta rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar in dalka xil ka saaran yahay baan u sheegaynaa way u dadaalayaan oo arrin iyo adduun bixiyaan oo ay arkaan dalkooda iyo dadkooda xaqdarrada ku soo duulay in la iska dhiciyo sharciga islaamka ogol idigaaga iyo dalkaaga iyo dadkaaga inaad difaacato waxaan leeyahay halloo kulli waa in la isu taagay